السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر كيني لبات برشدة موقال سمينتا إن عشر كان وحن كبران دونا هدو إلهي إدمو إن توليس كأو مهم سن أما توليس كأو بدن وأن أديكسن دونا إن شاء الله تعالى إن توليس كيعني بروجكت يدا أو بدن أنو أديكسن دونا يعني مركا بروجكت أن سمينينو إن وحن سمينينا إن وحن أديكسن دونا إن توليس مركا أما فيجرز مركا فيجرز أو بدن ama ugu isticmaalka badan inta projectyada aan samayn doono haduu ilaahay idmo ayaan kaga hadli doonaa si kooban haduu ilaahay idmo insha Allah taala okay ka faa'iideysi wacan hana ilaawin inaad videoga like gareyso isku soo noqod wanaagsan waa casharkeenii labaad ee barashada muuqaal samaynta. casharkii hore waxaan kaga soo hadalnay sida softwareka loola soo dego iyo weliba sida looga dhigo mid free ah. casharkan waxaan ku baran doonaa toolska ama featurada ugu muhiimsan ee uu leeyahay Camtasia ama featurada loogu isticmaal badan yahay aan dhaho ama aan idhaahdo sababtoo ah feature waxaa jira oo ku jira softwarekan Camtasia laakiin marnaba la adeegsan doonin. kuwana waxa waaye mar kasta ayaa la adeegsanaya oo la isticmaali doonaa. marka kuwa ugu muhiimsan oo aan mar walbo projectyada aan ku samayn doono ayaan adeegsanaya ayaan sharxi doonaa aan kaga hadlayaa casharkan haduu abeedmo. okay markaad soo furto appka markaad soo furto softwareka oo soo furmo qaabkan ayuu u eg yahay sidan ayuu u yaalaa. marka saan u egto halkan waxa yaalo automatically waxa ku qoran waxa ku soo muuqanaya import media markaad aragto waxa weeye video banaanka ku yaala ama desktopka ku yaalo ama sidoo kale meel kamid ah computerkaada ku jiro inaad soo import gareyso oo aad soo qaado oo aad soo geliso halkan aad soo dhigto. markaad soo dhigto hadhoodiina wuxuu ka soo muuqan doonaa halkan ayuu ka soo muuqan doonaa screenka. marka import marka ka tagno halkan qaybta kore markaad fiiriso waxa ku yaalo tools sida file edit modify view share and help. marka fileka waa muhiim. haddii fileka kaliya hadda marka aan siiyo automatically waxaad arkaysaa kuwa ugu muhiimsan new project markaad rabto inaad samayso project cusub waxaa leedahay control n ama new project ayaad dooranaysaa ama control n si shortcut ah. marka aad rabto inaad soo furto project aad hore u diyaarisay oo tusaale ahaan project aad diyaarinaysay wuxuu ku marayay meel dhexe asagoo meel dhexe ku maraya ayaad markaa save gareysay kaas ayaad rabtaa marka inaad soo geliso waxaa leedahay marka open project meesha ku yaala kadib wuxuu ku geynayaa wuxuu ku weydiinayaa meesha projectiga uu yaala locationkiisa kadibna waxa soo gelinaysaa soo furaysa open leedahay. sidoo kale halkan waxa ku qoran hadda active ma ahan sababtoo ah project kuma aan sameyn hadda waxa ku qoran marka recent projectidii u dambeeyay oo aad ku samaysay. marka haddii projectiyo aad ku samaysay hore aad ugu samaysay recent projects halkan ay soo galayaan oo kan active ayuu noqon doonaa. sidoo kale marka waxa ku xiga safena waa muhiim waa taqaana markaad project aad samaynayso waa laga maarmaan inaad save gareyso. sidoo kale save as markaad rabto inaad rabto magac inaad ka bedesho aad save gareynayso isla safekii waa save as save as maxaa u dhaxeeya wax saas weyn maaha. haddii aad tirahdo projectiga waa save gareyso maaha marka ugu horeysa magac uu ku weydiinaya laakiin marka labaad projectiga aad save gareyso
marka labaad magac kuma weydiinayo laakiin goorma ku weydiinaya marka labaad magac haddii aad rabto inaad ka bedesho sefas markaad tirahdo marka labaad wuxuu ku weydiinaya magac kadib rename leedahay yani magacii aad ka bedelaysaa kadibna save garaynaysaa okay sidoo kale halkan waxaa ku yaala project setting markaad ku dhufato wuxuu ku soo saaraya intaas dimensionkiisa marka canvas dimension wuxuu ku soo qoray marka 1080 pixel HD ilaa yani 1920 ilaa 1080 waa meesha ugu wanaagsan waxa weeye waa dimension aad u fiican waa HD meesha ugu sarreysa haddii aad rabto inaad ka bedesho dimensionka yani widthga iyo heightga haddii aad doonayso waad bedeli kartaa oo waxa waaye waxaad dooran kartaa intaas 720 HD 480 iPhone haddii aad rabto wixii la mid ah iPad haddii aad rabto cabirka uu isbedelaya soo ma jeedid waa ka markastoo aan mid cusub aan doorto inuu isbedelayaa screenka waa ka 720 haddii aad rabto inaad shaashada colorka aad ka bedeshana sidoo kale aad ka bedeli kartaa waa ka isbedelaya haddii aan doorto kaas colorka haddii aan doorto waa ka haddii aan doorto mid kale waa ka okay haddii aan doorto mid kale waa ka okay marka kiisan ku soo celinaya madowga okay kadib waxaa leedahay markaad ka bedesho apply ayaad leedahay marka apply waad apply garaynaysaa marka waxaa leedahay marka cancel okay sidoo kale waxaa kaloo ku jira qaybta fileka sign in iska daa sababtoo ah hadhow wuxuu ku dirayaa internet softwarekan anagana waa farsamin waad og tahay haddii aad tiraahdo sign in internetka aad ku xirto automatic softwareka waa ku dahay waa kuu sheegay casharkii koowaad waxaan kusoo sheegay softwarekan markaad adeegsanayso oo aad projectyaad ku samaynayso waxaad ka ilaalinaysaa internetkaad ka ilaalinaysaa okay marka kaas muhiim inoo maaha sidoo kale new recording haddii aad rabto recording cusub haddii aad rabto waxaad dooranaysaa control R yani haddii aad rabto kamtaasiyaha inaad wax ku duubto yani screenka haddii aad rabto inaad ku duubto marka kamtaasiyahan sidoo kale waxaad ku duubi kartaa screen recording hadda aniga aan samaynayo hadda aniga shaashadan duubaya soo ma sidoo kale waad ku duubi kartaa okay sidoo kale waa importna waxa waaye waa tan oo waxa waaye waxa kala keenay import haddaan ka hadalay markii casharka qaybtiisii hadda markaan qaybtii ugu yani qaybtan markaan bilaabayo ayaan ka soo hadlay fiiri marka sidoo kale halkan waa library-ga waxa weeye de import library qaab loo sameeyaa jirto asagana de waxa weeye markaas yani library Soomaali waa maktabad yani hadhowdii waxbaad ku safgaraynaysaa qoraalaad ku safgaraynaysaa text wixii la mid ah hadhowdii marka halkaasaad gelinaysaa okay marka sidoo kale waxyaabaha kale oo muhiimka ah aan u baahnaa inaan barno waxay tahay waxaan ku dhahdaa edit markaa yidhaahdo editka wax badana ku jiro halkan hadda waxaa waaye hal mid keliya unbaa active yani 3 4 5 camal active ah kan iyo kan ayaa active hadda iyo kaas inta kale waa inactive waa sababtoo ah the video ama project hadda isticmaalayna male waxba ma soo gelin okay marka waxa weeye redo cut isticmaali doonaa undo redo yani control z yani markaad wax delete garayso aad rabto inaad soo celiso su'aal ahaan gacanta kaaga dhacday sawir aadan rabin inaad delete garayso ama video waxaad rabtaa inaad soo celiso waxaa leedahay control z sidoo kale redo haddii aad rabto inaad dib ugu noqoto mar kale waxaa leedahay markaa control y cut haddii aad rabto inaad cut garayso waxaad leedahay control x ama copy haddii aad rabto inaad copy garayso control c ayadoo shortcut ah ama paste delete okay iyo wixii la midka marka intaas waa muhiim sidoo kale split marka la rabo in dee la kala saaro videoga laba qayb loo kala qaybiyo loo kala saaro split all asawara marka wax badan adeegsan doonaa markaas hadda sidoo kale waxyaabaha kale muhiimka waxaa kamid ah grouping grouping intaan gaarin sidoo kale waxaa kale muhiim ah waxaan ku dhahdaa separate audio and video marka muuqaalka ama videoga iyo codka marka la kala saaro isagana waa muhiim u arki doonaa groupka waa muhiim marka videoyada ama sawiranta aad samaynayso ama muuqaalada samaynayso inaad groupka wada dhigto aad midayso okay asagana muhiim sidoo kale okay waxaa kaloo muhiim ah halkan aan u jeedo okay ha
sidoo kale hadhowdii marka la sameynayo arranging yani marka sawir aad rabto inaad gadaal geyso bring to front, forward, send backward, send to back. يعني marka muuqaal aad rabto inaad videoga ka gadaal marsiiso yani markaad rabto tusaalahaan cod inaad videoga dushiisa aad saarto ama sawir inaad videoga ka dul sareysiiso ama aad ka horeysiiso intuba okay waa arki doonaa marka insha Allah okay sidoo kale modify waxa weeye in wax laga bedelo videoga ama muuqaalada ama codkii wixii la midka ah ama videogii wixii la midka ah wax laga bedelo in lagu daro animationkii dhaqdhaqaaq loo sameeyo in lagu daro maxaan ku dhahdaa behavior waa arki doonaa asagana asagoo marka kuwaan hadda modify-ga ayagoo caadi ah oo waxaa la keenay waxay saaran yihiin waa kuwan okay fiir tusaale ahaan markaan rabo annotationska oo kale annotationka waxa weeye in qoraal sawirkaad tusaale ahaan videoga aad ka hadlayso aad rabtaa inaad xogaa sharxaad aad ka bixiso ama wax la mid ah marka qoraaladii waa kaas meeshii qoraalkii aad ku qori lahayd in xogaha yani note aad ka bixiso note aad ka qorto ayaad rabtaa sidoo kale behavior waxa weeye de asagana sidii animationka oo kale dhaqdhaqaaq ayuu sameynaya waxaa loo adeegsadaa textiga qoraalada loo adeegsadaa badanaa qoraalka dhowdi marka sida hadda idin muuqataaba qoraalkii sidan ayuu noqonayaa waa kala duwan yihiin marka midba midka kale ayuu ka duwan yahay dhowr xabaa ku jirto marka midba midka kale ayuu ka duwan yahay kana sidoo kale kana sidoo kale kana sidoo kale okay inta waa fahnay haddii sidoo kale looma adeegsado text kaliya waxaa kale loo adeegsadaa video xitaa waad u adeegsan kartaa hadhowdii waa arki doonaa insha Allah ayagoo tusaalooyin ayagoo project ah ayaan sameyn doonaa hadda beedmo animationska ka wada animationska ayagana waa kaas qaabkaas ay u sameynayaan animationka movement ay sameynayaan ama dhaqdhaqaaq ay sameynayaan qaabkaas okay dhowr xabaa ku jirto okay hadhowdii marka videoga sidaas ay u soo muuqan doonaa ama sawir hadduu yahay ama haddii video aad sameyso aad u isticmaasho aad ku dabaqdo intuba okay si lamid ah cursor effectska cursorka yani arrowga ama falaarta qaabkaad u bedeli lahayd hadhowdii markaad recordingka aad sameynayso Camtasia markaad wax ku duwayso screen recordingka markaad sameynayso sharaxaad aad bixinayso qaabka u soo muuqan lahaa arrowga waa ka okay qaabkaas iyo wax la midka dhowr xabaa ku jirto marka midkaad doontid okay sidoo kale voice narrationka yani codka inaad halkan codkii aad ku dulduubto say laftirkiisa dhexdiisa okay hadda start voice recording haddii aan iraahdo recording ayuu bilaabi doonaa laakiin hadda muhiimadeenu ma ahan in hadda aan wax duubno yani waxa waaye waa arki doonaa insha Allah marka kuwa ugu muhiimsan adeegsan doona kan hadda voice narrationka kan uma baahnayn haddeer muhiimna saas uma ahan mar loo baahnaa waa jirta laakiin ma badna okay audio effects kan waa muhiim kan marka waxa weeye waxa loo adeegsadaa in codkii wax laga bedelo in codkii tusaale ahaan noise removal oo kale hadda in codkii shucaaca laga saaro in levelkiisa volumeka ama codka dheerintiisa in xogaha level laga dhigo xogaha haddii lasla simo haddii codka uu kala fog yahay uu kala dheer yahay oo kale fade in fade out fade in kana waxa weeye de marka codka de qaabka uu soo galayo oo kale yani qaabka uu soo muuqanayo oo kale iyo waxa waa fade out ka qaabka marka codka gadaal uu noqonayo xogaha yani uu siyareynaa xogaha fade in kana xogaha de uu codkii xogaha uu soo weyneyna xogaha uu soo weyn yani xogaha kor u soo kacaya codkii increase uu sameeyna fade out na xogaha decrease uu sameeyna speedkiina waa ka maxaan ku dhahdaa clip speed yani clipka in speedka xogaha hadii aad u sameyso speed yani mar inaad boobsiiso clipkii intuu soconayo macnaha tusaalahaan degdeg aad ka dhigto isboobsiyo codkii iyo muuqaalkiiba hal mar yani si degdeg ah isku boobsiyo wixii la midka ah ku arki doonaa insha Allah sidoo kale qaybta viewga waxa waaye halkan waxaa ku qoran hide toolska inaad iska qariso toolskii inta halkan yaalay okay sidoo kale show tools okay soo muujisay marka propertieski hadhowdii marka wax la sameeyo propertieska arki doonaa videoda marka la sameeyo mark track show quiz track canvas key timeline adiga ugu muhiimsan waxa weeye in toolskaas la qariyo iyo hadhowdii sidoo kale waxaa kaloo muhiima waxaan ka tagay sidoo kale qeybaha ugu muhiimsan qaybta hoose
qaybtan hoose waxa weeye waxaa loogu talagalay in wixii project la sameynayo oo dhan in halkan lasoo dhigo. project walba la sameynayo yani videogii oo kale in halkan lasoo dhigo, codkii oo kale in halkan lasoo dhigo. trackana mujida track 1 track 2 hadhowdii marka halkan waa badanayaan marka videoyada ay badan yihiin ama waxyaalaha editing aad ku sameynayso ay badan yihiin halkan ayaa marka track uu sii badanaya track 1 track 2 track 3 marka halkan marka ay video ayaa soo gelinaysaa ama sawir ama cod iyo wixii la midka ah ayaa loogu talagalay marka halkan hoose timeline-ka. marka timeline-kan waxa loogu talagalay frame-yadii iyo wixii sawir iyo movie maxaan ku raahdaa muuqaaladii iyo videoyadii wixii in halka marka la dhigo lagu sameeyo. Okay, marka casharkeeni labaad halkaan aan ku soo gabagabeynaya. casharka xiga marka wuxuu inoo noqon doonaa waxaan sameyn doonaa projectigeeni koowaad ayaan sameyn doonaa hadduu Eebbe idmo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.